السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقات بان idin salaamaya barnaamijkan caawade hayo waxa weeye baro sida Facebook la isaga xiro ama la iskaga xidho haddii aad rabto inaad ka guurso gebi ahaantiiba haddaba qaabkii ayaad u xidhi kartaa haddii aad doonayso gebigiisaba inaad xidho ama aad iskaba ilowday Facebook haddii aad laba Facebook leedahay Facebook aanad doonayn mid kale labaad inuu shaqeeyo sideed gebigiisaba aad uga saari kartaa meesha xitaa haddii la dayday sideen ayaan loo heli karin xitaa haddii aad barnaamijkan maanta ku hayo aad samayso waxyaabaha kuu sheegayo forever lama helayo haddii si kasta loo baadho. Okay, barnaamijkan magaciisa waxaa la yidhahdaa deactive. Haddaba deactive halkuu ka yimid, haddaba waxaynu directly toos u geli doonaa facebookeena. asxaabi facebookeena markuu sidan yahay waxaynu toos u saddexda gees kulle mobil kastaba dhinac bay kaga tala balse dhinaca mobilka midig bay kaga tala aniga waayahay si toos waxaynu tognaa doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo account settings dabeet waxaynu ka dooranaa security. hadda asxaabteeda qaaligaa si toos ay la socdaa halkaa u hooseysa waxaa ku qoran deactive waxa weeye guud ahaantiiba waad kansalaysaa barnaamij facebookan. hadda facebooka tusaalayaasha aan ku bixiya waxaan doonayaa caawa inaan tusaalo idinka idigu siiyo waayo facebook kale waan sameyn karaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo hadda si fiican ila socda deactive. halkan wuxuu iga rabaa password. hadda asxaabtayda si fiican ila socda raalahaada daqiiqad waayahay asxaabtayda continue baan leeyahay. wuxuu weydiinayaa su-aalahan wuxuu ku weydiin doonaa su-aalahan maadaama akoonkaagan sababta aad u xidhaysaa maxay tahay. are you sure you want to deactive your account? miyaad rabtaa inaad akoonkaagan gebi ahaantiiba xidho? haddaba wuxuu ku weydiinayaa su-aalahan this is temporary, I will be back. temporary ayaan xidhay ama ku meel gaara. I spend too much time using Facebook. Okay, I have previously consent, I have another Facebook account. haddaan imika tan doorto aad arkaysaan macnaheedu waxa weeye uma baahni waxaa leeyahay Facebook account labaad markaa kan waan xidhaya. I don't find Facebook useful, other please explain further. waayahay haddaba waxaan leeyahay si temporary maadaama uu yahay facebookani mid aan badanaa u isticmaalo tusaalayaasha waxaan leeyahay si temporary. would you like to log out instead of deactive your account? Okay, log out. si fiican baad u aragtaa asxaabteeda qaaliga balse haddii aad adugu rabto inaad gebi ahaantiiba iska xidho waxaad leedahay facebook baan leeyahay wixii lama halmaala kulli tusaalayaasha hadda aynu soo marnay ayaad samayn doontaa. haddaba asxaabteeda si fiican aan u wada fiirino. haddaba si fiican waad u arkaysaa baan filaya asxaabteeda qaaliga anigu kaliya waxaan doortay waxaan doonayaa si temporary waa qodobka koowaad. haddii aan rabo guud ahaantiiba inaan xidho bahalkan waxaan dooranayaa I have hadda si fiican u fiirso I have another Facebook halkaasaan tiga saarayaa dabeeta guud ahaantiiba waan xidhay. halkana wuxuu doonayaa inaad xoogaa yaro sharaxaada ka bixiso laakiin waad iskaga tegi kartaa. dabeeta waxaad leedahay opt out to receive a future email for Facebook dabeeta waxaad leedahay deactive. asxaabteeda qaaliga waxaan filayaa inaad si fiican ila socotaan guud ahaantiinba hadda facebookan waxaan doonayaa inaan khadka ka saaro bal hadda si fiican ila socda. may I have another Facebook? okay, halkana tig baan saari doonaa waayahay deactive baan leeyahay. waxaan rajeynayaa si fiican dhammaantiin waad ila socotaan. waa kaa account deactive successful. hadda akoonkaa lama helayo forever qof kastoo isku daya waa ina daay facebookaasi. asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa haddii barnaamijkan ku cajibiyo insha allahu tacaala subscribe, like, comment iyo share intii aad ugu dambana saar doonto fadlan subscribe yaan laga. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. baan idin salaamaya asxaabteeda qaaliga.